واتاي دوان مدحوينها مامل goboleedka darafka idinku haye Puntland baa hadlay waxa uu sheegay hadaladiisa ka mid ahaayeen inay doonayaan inay Soomaaliland wada hadal la galaan wada hadalka Soomaaliland ay dhici karto mararka qaar kood inay ba Soomaaliland wada go'aan oo Soomaaliya ka wada haraan ama inay Soomaaliya toos wada raacaan dalku noocaas oo idinkaga yimid Cabdiraxmaan Faroole sidoo arka Cabdiraxmaan Faroole waxa uu sheegay horta mid dalku dal quraha Soomaaliya waxba galgalan labadan gobol ee loo ordiya tuga ku sito waxa weeye waxa ka mid tahay Soomaaliya ka mid tahay waxba anaga isku kaayo waxaan nimatala maaha waxa weeye dalkaas Ilaahay baday hadduu ka go'ayna gaar ha uga go'o hadduu ku darsamo ku darsamo laakiin anaga waxa weeye isku kaalmeeyay inaan isku kaaya inaan sahel looyin ana dal baan ahayn xuduudaha waa international ka yeedhin isku yeedhin وانترناشنال حدودها يجو أنا وتسمدوا إن الصومالي حدوده هذي إنهم كحكي بدلوا ما يجي وشرتها هذا يوصل ميسان يعني دولة قبيلة خيارك يوصل ميسان سوس كشيء كيا ولا سفر عري إنهم حنسنا دولة قبيلة يصير كل سنة هذول هي ربما يرحلوا صوماليا وإذا فدريش ما سمعنا أنا وما عندنا تودا وقبل كان يدقين وكان قبل قرى وهرتبيت gaari digay ma jirto marna ma dhici kartaa in wada hadal la gashaan maadaama gobolada qaar kood isku maraysan anaga waxa weeyaan waa dad maamul baa ka dhisan labada gobol iyo barkaas wixii xiriir ah magaan saayid argixisadaas iyo ehelnimo iyo darisnimada kilka shanaad ma wala leenay kilka shanaad oo Itoobiya ka mid ah jiijiyaan la shaqeynaa gobolka la shaqeynaa taas waa lagu waajib inaanu xuduudaha kala shaqeynaa xilliga wanaag dad isxigaan laakiin ilaaho hadda tagtaana waan tagay hadaan joogay waan joogay waxaan arkaa